fulinta dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaanadooda salaadiinta ogaasyada nabadoonada ciidamada amniga oo noo suurtageliyay inaan caawa halkan ku kulanno shacabka halkan fadhiya ee sharafta badan gobolada waa beri galmudug iyo sida wanaagsan ee runtii heesaha qiirada leh oo wadaniyada ay ku jirto ay noogu sameeyeen kooxda Bambeyda bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allah ma hadskale ilaahayna khalqay oo awoodda lahaa oo noo suurtageliyay intaanoo qof oo meelo kala duwan ka kala yimid noo fududeeyay safarkii annagoo caafimaad qaba halkan aan wada fadhino ilaahay ina siiyey naxariista iyo wanaagga iyo quruxda iyo wax kasta aan haysano waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka reer dhuusamareeb sida sharafta badan ee walaaltinimada leh ee nagu soo dhaweeyeen waxaa ka muuqatay runtii shucuur wadaniyad iyo shucuur waxaa ka muuqatay dowlad jecel aad iyo aad ayaan runtii kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad u martigeliseen intaanoo erga ah oo 700 kor u dhaafaysa iyo guddiga dib u heshiisiinta sida wanaagsan aad u soorteen aad u soo dhaweyseen ee u dareemeen inay joogaan hooygooda gurigooda aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinaynaa shacabka magaaladan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha oo runtii juhdi xoog la geliyey shaqo badanna runtii ka qabtay muddo 2 bilood really ku dhownaa halkan joogay oo meel walba tegay hadday tahay tuulo hadday tahay magaalo la hadlay oo dhaqameedyada halkan fadhiya qaarkood ama intooda badan la hadlay dhalinyarada dhiirigeliyey u macneeyey sababta loogu baahan yahay dib u heshiisiin iyo sababta loogu baahan yahay in dib loo dhiso dowladda aan haysano ee galmudug aad iyo aad ya runtii aan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan uga shaqeeyey ciidamada dhiirigelintooda isku dhafkooda diiwaangelintooda dhinac walbaba iyo in magaaladan ay noqoto runtii isaga iyo sheekh shaakir ka wada shaqeeyaan inay magaaladan noqoto magaalo ummadoo dhan ay wada leedahay cid walbana ay martigelin karto aad iyo aad yaan runtii shaqada wanaagsan oo qabtay aan uga mahadcelinayna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkay madaxweyne xaaf runtii muddadii aan wada shaqeynay dee colorful iyo ahayd waa isku jirtay waqti fiicanna waa soo qaadanay bini aadamkuna khasbiyan marka la wada shaqeeyo mugdi waa imaan karaa laakiin waxaan markhaati ka kacayaa aan markhaati furayaa inuu yahay oday Soomaaliyeed mas'uul inuu yahay nabadoon inuu yahay mideeye inuu yahay tanaasula inuu yahay oo marka uu arko xaaladdu inay sidaas u cakiran tahay u tanaasula shacabkiisa qofka bini aadankana waxaa lagu cabiraa legacygiis ama wuxuu ka tago waxaa lagu cabiraa marka uu ka tagayo xukunka yaa lagu cabiraa iyo sida uu uga tago tanaasulku waa geesinimo qofka aan tanaasulin waxaan u aqaanaa inuu fulay macnaheedu waxay tahay tanaasulka markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yiraahdo waqtigeyga waa dhamaaday hawshan dadkii ku habooneed ha loo gudbiyo aad iyo aad runtii ugu mahadsan yahay inuu runtii ku soo wareejiyay hawshii dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinaya abaalkeeda iyo sharafkeedana isagaas kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ahlu sunno waa xaqiiqa ummaddu
si sahlan iyo wax ku iloobaan magaaladan halkan annagu nabadaan uma fadhin lahayn haddaysan ahlu sunno ahayn. dad badan baa ka shahiiday sidii magaaladan ay nabad u ahaan lahayd iyo nawaaxiga galmudug inteeda badan